بسم الله الرحمن الرحيم ودكتور يعقوب آدم عبدي oo ku takhasusay cudurrada maanka mawduuceena labaad waxaan kaga hadlaynaa cudurrada maanka wixii keena dadka qaati maxaan ku raahday mukhadaraadku muxuu keeni karaa oo xanuunada u sii dhibaato u sii dheeraad u sii keeni karaa muddada ramadaankan ku jirno xiriirka moogtahay maxaan ku raahdaa cudurradaas iyo soonka marka wixii haddaan ku bilaabo cudurrada maanka maxaa keena cudurrada maanka waxa keena waxyaabo fara badan baa keena waxyaabaha waxa kamid ah mesela waxa la oran karaa mesela hidaraac buu noqon karaa oo mesela hadii qof moogtahay maxaan ku raahdaa aw ehelkaagu xanuunsanayo oo xagga maanka uu ka xanuunsanayo waxba dhici karta aabaha bay noqon kartaa hooyada bay noqon kartaa walaalka bay noqon kartaa adeerka bay noqon kartaa awowga bay noqon kartaa in adiguna aad leedahay inta ay dhici karto in moogtahay xanuunkaas kugu dhaco haba sahaatay qasab maaha inuu xanuunkaas hadii aabaha iyo ehelkiina ay qaar kamid yahay xanuunka leeyihiin qasab maaha inuu adigana xanuunkaas kugu dhaco laakiin micnaheedu waxa weeyaan waad uga nugushahay masal fiican waxay disinayaan xanuunka la yiraahdo schizophrenia ee dhimirka runta ah boqolkiiba hal ayuu dadka adduunka oo dhan ku dhacaa Soomaaliland wax dhici karta boqolkiiba hal inuu ku dhaco haba sahaatay hadii adiga ehelkaagu ay leeyihiin isla xanuunka haday leeyihiin adigu boqolkiiba 10 ayuu noqonayaa oo markaa wax 10 jibaar ayaad uga dhowdahay dadka kale inuu xanuunkaas kugu dhaco xanuunkan maanka marka laga soo reebo hidaraaca wax dhici karta waxyaabahan dhaawaca ama dhiilada qofka moogtahay haday ku dhacdo waxyaabaha kamid ah hadii mesela hortaada qof lagu dilo qof aad jeceshahay oo ama aabahaaya ama walaashaaya ama hooyadaaya oo iyaguna si degdeg ah u dhinta ama xanuun muddo dheer ku raagay ayaa dhici karta qudhooda inay moogtahay maxaan ku raad dhibaato ku keeni karto oo xiskaaga iyo dareenkaaga ay bedeli karto gaar ahaan moogtahay dadkaasi waa dadka already u nugul ee moogtahay maxaan ku raad in le moogtahay cudurrada maanka waxa dhici karto kale haduu qofku xaalad dagaal galo oo mesela maxaan ku raad ku jiro waqtiyadan moogtahay waqtiyadan soo marnay dagaalada iyo burburka iyo isdilka iyo isdhaca iyo waxyaabahaas jireen hadii qofka ay ku dhacdo moogtahay maxaan ku raahday dhibaatooyin sidaas oo moogtahay maxaan ku raahdaa qax iyo burbur ama masuubooyin kale oo dabiici ah ay dhibaato ku keenaan in qofka laftigiisu ay moogtahay xanuun kamaanka u keen kartaa dhici karta waliba gaar ahaan dadka aad ugu sii nugul marka waxa weeyaan waxa kale oo jira iyaduna habka moogtahay maxaan ku raahdaa dhaawac wuxuu ka iman karaa oo kale ilaa qofku moogtahay markuu uurka ku jiro hooyadii uurkeeda ku jiro xitaa haduu dhaawac gaaro dhaawacaasi maaha uu dhaawac muuqdo oo moogtahay maxaan ku raahdaa nabura laakiin dhaawac xagga shaqada maskaxda haday gaadho waxa dhici karta inay ku yeelato raad noloshiisa dambe mesela waxaan ka siinayaa mesela hooyada markay uurka leedahay haday tahay hooyo careysan hooyo hadii jeer dagaal ku jirta hooyo diiqadaysan hooyo iyadu xanuunsanaysa ama hooyo nafaqadeedu aad u yar tahay waxay aad u dhici kartaa ilmaha caloosheeda ku jira inuu moogtahay dhibaatadaasi ay dhaawac u keento xagga maskaxda waynu naqaanaa way jirtaa in la yiraahdo caruur jirta fudud oo moogtahay maxaan ku raahdaa la yiraahdo ADHD bay qabaan ama autism bay qabaan caruurahaas kale waxa dhici karta warow qaarkood hidaraacna uu jiro haddana waxa dhici karta hadii ay dhaawac soo gaadho intay caloosha ku jireen way dhici kartaa in ilmihii uu raad ku yeesho noloshooda dambe raadkaas ha ahaado ama markay dhashaan ama markay weynaadaan ba ahaatee marka waa aad iyo aad ay u muhiim tahay in hooyada markay uurka leedahay ama muddada uurka leedahay ay hooyada faraxsan tahay ay hooyo moogtahay degan tahay ay hooyo wax ay u baahan tahay badankeega heshaha inay tahay in hooyo caafimaadkeegu aad u sareeyo ay tahay oo moogtahay maxaan ku raahdaa la daryeelo laakiin hadii hooyadu ay aad u careysan tahay hadii jeer oo maskaxdeedu ay stress fara badan ku jiro ay soo deynayso dheecaano fara badan oo moogtahay culayska maskaxda sii kordhiya culayska maskaxda oo dhan wuxuu ku dhacayaa moogtahay ilmihii ku dhacayaa marka hadaynu rabno caruur barbaarino caruur caafimaad qabta waa muhiim hooyadana in moogtahay maxaan ku raahdaa caafimaadkeega iyo taakulinteeda ka shaqeyno markii hooyada umusho qudheeda barbaarinta ilmaha hadii ay ilmuhu ku barbaaro guri moogtahay maxaan ku raahdaa aan burbura oo hooyada iyo aabbo hadii jeer salaynayaan aw dagaal ka dhex socdo ilmaha la dilaayo la quursanayo la caayayo awna jacayl jirin
oo ilmaha aan jacayl iyo lagu abuurin moogtahay maxaan ku raad koolkoolin iyo soo dhaweysho iyo saaxiibnimo ilmaha lagu abuurin ilmaha quriis markuu weynaado waxa dhici karta inuu noqdo ilmo moogtahay aan isu kalsooneyn ilmo moogtahay hadii jeer isku arkayo dadka kale ka liito ilmo laga yaabaa inuu cabsi yeesho ilmo moogtahay maxaan ku raahdaa ismaamulkiisa iyo horumarkiisaba aw inuu la jaan qaadi waayo dad kale ee moogtahay la daada iyo dhalinyartiisa kale inuu la jaan qaadi waayo waxa dhici karta intuu xitaa dhexda ku jiro markuu iskuulada iyo wax baranayo nolosha si adkaato in ku soo wada baxaan waxa soo kale oo nolosha ka dhaca dhici karta ama mukhaadaraad iyo dhibaatooyin badan aw dhex galaya dhici karta marka waxa weeye waxyaabaha xanuunka dhimirka keeni kara way badan yihiin waxa kale oo kamid ah mukhaadaraadka oo qofku hadduu mukhaadaraadka isticmaalo hooyadu hadday isticmaasho masalan ama sigaarka cabto ama moogtahay maxaan ku raahdaa qaadka isticmaasho ilmaha dhibaato u keenaysa uurka ku jira qofka weyn hadduu isticmaalo qudhiisu watan hore uga soo sheekaynay haddii uu moogtahay qaadka isticmaalo ama darooyin kale isticmaalo sida khamrada kokainta herointa waxyaabaha hadduu isticmaalo kiniinka qudhiisa wadankeena aad buu kiniinka ugu soo fara badanaya oo dad badan baa kiniinka isticmaala iyadoona dhakhaatiirtu u qorin wuu bedelayaa madaxa waxa dhici karta aakhirtaankana qofkii inuu xanuunsado ehelkiina ma fahmayaan qofkan wax si ka yihiin haddana waxaad arkaysaa qofkii oo noloshiisa ina hor u socon marka waa in la darsaawo loo geeyo dhakhaatiirta moogtahay aqoontaa leh bal in la ogaado moogtahay maxaan ku rahdaa dhibaatada jirta marka waxa weeyaan waxyaabaha keeni kara cudurrada maanku aad iyo aad bay u kooban yihiin habase haddaan intaa ku dhaafo waxa weeyaan cudurrada maanka waa laga hortegi karaa hababka looga hortegi kara waxaa ka mid ah kow iyadoo xuquuqal aadamka la ilaaliyo waata ugu horeysa weeyaan waa waxyaabahan soo sheegay iyadoo hooyada xuquuqdeeda la ilaaliyo oo hooyada la taakuleeyo haday jeer laga farxiyo ay hooyada ku nooshahay farxad iyo moogtahay raaxo ay ku nooshahay intii karaankooga faamiliga ay ku nooshahay waa muhiim weeyaan inuu xiriir weyn ka dhaxeeyo aabaha iyo hooyada waa muhiim weeyaan haddii aabbuhu uu rabo ama iyo hooyadu hadday rabaan inay caruur caafimaad qabta yeeshaan waa inay marka hore iyaga iska bilaabaan inay iyagu ku noolaadaan nolol isjacayla iyo nolol farxad ka dhaxayso haday marka dambe waxyaabahan dagaaladan burburkan waxa soo dhani waxa keeni karaan iyagu qudhoodu caafimaad darre keeni kartaa marka haddaynu bulshadeena rabno in bulsho caafimaad qabta ay abuuranto waa in iska dhaafnaa cadaalad darradu waa kamid weey qudheedu cadaalad darro xuni haday dhacdo ummadaas ku nooshahay ummad cadaalad darro aad u weyn qudheeda way keeni kartaa cudurrada maanka waayo dad badan oo masaakiina oo aan iyagu isdaafici karin yaa jira oo mesela maxkamadaheena dad badan oo masaakiin oo lagu tantaa jira oo isdifaaci karin oo loo yar qabsan karin marka dadkaasi hadhow toole cudurrada maanka ayaa u iman karta waqtigan ramadaanka ku jirno dadka xanuunka maanka qaba yani dhibaato uma keeni karo ramadaanku waxa weeyaan waa waqti cibaado waa waqti wanaagsan waa waqti xitaa qofka madaxa ka xanuunsanaya deganaansho siinaysa xagga madaxa weeyaan habase ahaatee hadduu qofku aad u xanuunsanayo xanuunkiisu aad iyo aad u culus yahay diinteenu waa diin sahla way noo ogoshahay qofkaasi inuuna soomin oo moogtahay aw dawooyinkiisa iyo xanuunkiisa xoog saaro laakiin waxaa muhiima inuu la tashado dhakhaatiirta cudurrada maanka ku shuqul leh oo weydiiyo inuu soomin karo iyo in kale ama xanuunkiisu khatarteedu intay leeg tahay ama xanuunkii dib uga soo noqon karo hadduu soomo marka xagga daawada laga eego waxa weeyaan hadduu qofku markaa soomi karaayo oo isaga iyo dhakhtarkiisa la gartaan inuu soomi karaayo dawada waa la manage garayn karaa oo qofku tii habeenka uu qaadanayay sidoo buu qaadan karaa habeenkii markuu seexanayo tii uu qaadanay subaxii wuxuu qaadan karaa suxuurta kale intuu suxuuran buu qaadan karaa mararka qaar ku daawooyinka waa la isku dardari karaa oo qaar baa moogtahay maxaan ku raahdaa la wada qaadan karaa ama waqti ama laba waqti la qaadan karaa laakiin waxa weeyaan dhakhtarka aad la xiriidid u tag ka wada sheekaysta marka isaga ku sameynaya moogtahay maxaan ku raahdaa schedule ama plan ku sameynaya si daawada u qaadan lahayd aad soonkaagana u wadi lahayd dadka xanuunka ka bogsaday maanka maxaan ku raahdaa hadda iska fiican waxa weeyaan wax la mid yihiin dadka kale xanuunada kale ku dhacay xanuunada kale ka bogsada way wax dhibaato oo moogtahay ramadaanka uu keenaya ma jirto habase haatee hadduu qofka xanuunka maanka ku dhaco waxa muhiima waxaa dhici karta in moogtahay dadka kale uga nugul yahay xanuunka maanka ku dhaco hadday depression tahay hadday tahay psychosis degdega hadday tahay walwal hadday tahay marka waxa muhiima inuu iska ilaasho qudhiisu qofku inuu isbarto anu bukaanadeeda waxaan hadii jeer ku idhaahdaa waan isbartaa adigu oo qofku hadduu isbarto wuxuu ogaanayaa intiisa qof ilaahay un baa 100%
qof walba iin buu leeyahay marka qofka hadduu is ogaado iintiisa iyo moogtaa wixii u keeni kara walwaliyo culays xagga maskaxda u keeni kara stress fara badan hadhow markaa wuxuu ku noolaanayaa nolol degan oo moogtahay maxaan ku dhahdaa xanuunkiisii aw moogtahay maxaan ku dhahdaa dhibaato u keenin ama xanuunkii mar labaad ugu soo celinin marka waxa weeyaan ramadaanku wax dhibaato uma keenayo qofka hadduu iska caafimaad qabo laakiin waxa muhiim ah inuu hurdo fiican seexdo waxa muhiim ah inuu cunto fiican seexdo waxa muhiim ah inuu jimicsi joogto ah sameeyo moogtahay maxaan ku dhahdaa hadee jeer ama socod waliba socodku waa bilaash lacag kaaga ma baahna in socotid ugu yaraan maalintii ilaa 10,000 oo moogtahay talaabo in maalin kasta socotid ama dhowr kun oo kiiloomitir inaad maalintii socotid waa wax muhiim ah weeyaan marka haddaan soo gabagabeeyo waan ku soo gabagabeeyo talo waxaan ku soo gabagabeyn lahaa taladan had iyo jeer dhiibo markaan moogtahay maxaan ku hadlay arrimahan oo kale laga warsanaayo oo ah cudurrada maanka waxay la mid yihiin cudurrada kale jirka haddii aad moogtahay maxaan ku hadlay lug aad ka jabtid ehelkiina way ku arkayaan way lugti baad ka jabtay way muuqataa waa lagula ordayaa dhakhtar baa lagu geynayaa waa lagu caawinayaa laakiin haddii ay maskaxda xanuun maskaxdaad qabtid oo مثلا depression oo kale ka soo qaad laguma arkayo xanuunkaaga cid arkaysa ma jirto wax laga yaabo laakiin maamulkaaga inuu hoos u dhaco oo iskuulkii ka hadhid shaqadaadii aad joojisid aad asxaabtii aad raacaysid aad joojisid marka taas waxa dhici karta in reerku ay warkaan ama ehelkaagu ama moogtahay aabaha ama hooyada ama walaalaha ay warkaan inay tahay qof caajisa oo way hadii jeer waan aragnaa dad aad u xanuunsanaya oo ehelkooga ay u arkayaan qof isyeelyeelaya qof aan moogtahay maxaan ku dhahdaay aan caajiso wax qabsan karayn marka waxa muhiim ah in loo arko cudurrada maanku lama arkayo ma muuqato sida xubinta jabtay laakiin waa jabniin xagga maskaxda marka waxay u baahan tahay kuleen weyn in qofka la siiyo midda kale iyaduna ku soo gabagabeyn la waxa weeyaan cudurrada maanka waa la daaweyn karaa cudurrada maanka waxa uu jira kuwa badan oo badankooga qofka uu ka bogsan karo cudurrada qaarkoodna sida macaanka oo kale dhiig karkana qofku la noolaan karaa oo hadduu dawadiisa qaato uu reer buu yeelan karaa wax buu baran karaa shuu shaqaysan karaa marka waxa weeyaan jidhkeena maskaxdeena iyo jidhkeenu ma kala duwana way isku xidhan yihiin maskaxduna gaar maaha jidhka waxa jira cudurro badan oo madaxa ku dhaca oo jidhkeena aafeyn kara cudurro badan oo jidhka ku dhaca oo madaxa aafeyn kara marka waxa weeyaan looma baahna dadka madaxa ka xanuunsanaya in la dilo in la xidho silsilad lagu xidho in waraabo loo xidho in la garaaco waxa u baahan yihiin jacayl fara badan faham fara badan dhageysi fara badan oo la dhageystay u baahan yihiin ilaahayna ay nagu garab galo dadkaas waa dad aad u dhibaataysan oo inaan moogtahay maxaan ku dhahdaa caawino waa muhiim weeyaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh